أنا قبت معنا 40 أفرمات قبتي أنت قبتي الميز ما قرب أرمات أبي نزل شو qaar ka mid ah ehelada Cabdikariin qalbi dhagax ayaa maanta ka soo dhex muuqday banaabax ka dhacay qayb ka mid ah magaalada Muqdisho ka oo shacabku ay ku dalbanayeen in dawladda Soomaaliya ay cadeyso sababta qalbi dhagax ay ugu wareejisay dawladda Itoobiya goobta uu banaabaxu ka dhacay waxa ku sugnaa ilaa 5 caruur oo uu dhalay Cabdikariin Sheekh Muuse qalbi dhagax waxaana ay dalbadeen in aabahood la sii daayo iyaga oo murugo ay ka muuqatay ehelada Cabdikariin qalbi dhagax ee banaabaxa ka hadlay ayaa dawladda Soomaaliya ka dalbaday in baaqooda ay si degdeg ah uga jawaabto Suulimaantii kanaga waxa weeye ugu dambaystii waa qalbi dhagax oo meeshan laga waday in Soomaali soo cilmaysa Itoobiya si kale ku soo cilmaysa Soomaali inay isku meel ka istaagto oo ka wada dhaqaaqdo oo dareenkeeda si naba u muujiso waxaan halkan isugu nimid annagoo ah bulshada Soomaaliyeed dhammaanteed qayb walba ka kooban inaanu dareenkanaga ku muujinno dhacdadii ka dhacday xamar ee lagu wareejiyay halgamaagii Soomaaliyeed Cabdikariin oo kamid ahaa ciidanka qalabka sida Soomaaliya laguna wareejiyay cadawgii Soomaaliyeed ee soo jireenka ahaa taasaanu ka mudaharaadina dalabkanaguna waxa weeye Cabdikariin hal soo celiyo dalabkanagu inta weeyaan dawladda ka codsanino waxa weeyaan mudaharaadkanagu asaas weeyaan waxa raalli kama nihin bulshada Soomaaliyeed raalli kama aha waxa weeyaan oo anagu aan doonina oo Soomaali doonaysa dhamaanteed in aanu noqono dal mustaqila oo madax banaan baanu nahay inaan lagu xadgudbin dadkanaga muwaadiniintanada aan lagu xadgudbin mid ka mid ah xaasaska qalbi dhagax oo Muqdisho ku nooleed muddo 5 sano ah ayaa banaabaxa ka sheegtay in wasiirka arrimaha dibadda Yuusuf Garaad Cumar iyo Janaal Gabre oo ah sargaal Itoobiyan oo Muqdisho ku sugan in ay dalka Itoobiya u duuliyeen Cabdikariin qalbi dhagax waxaana lagu yiri waxa la fadhiyaa wasaaraha waxaana lagu yiri wafdi Soomaaliya ka socota la fadhiyo annaga dareenkanagu wuxuu lahaa maanta Soomaali way midowday marka ayada tahay waxaan ugu xigtay Cabdikariin Sheekh Muuse waa la dhiibay annaga dareenkanagu waa isqaybin qolana waxay tii ma dhici karto qolana waxay tii Soomaali way ka dhalataa madaxdeeda saadaasaan ahayn walaal annaga Cabdikariin Sheekh Muuse waxa la dhiibay isniintii in Muqdisho lagu jirdilay baasha fiisada Itoobiya loo sameeyay oo markuu safaaradda soo galay uu dareemay Cabdikariin in la dhiibay xaqiiqatan muxuu yiraahdaa anigu muwaadin Soomaaliyeed baan ay ummadda Soomaaliyeed sahay la dhaqmin dilya nololba waan galay waa la jirdalay waa la kaxeeyay rag Soomaaliyeed oo madax sheeganayaana kaxeeyay airportka uu ka dagaalamay waa la soo kaxeeyay raggii Soomaaliyeed dhan meel bi iska saaray Uganda isba loo dhiibay xaqanaana lagu jirdilay Cabdikariin Sheekh Muuse asagoo muwaadin talay Soomaaliya buuq siyaasadeed ayaa ka dhex jira xafiisyada madaxda sarsare ee dawladda kaas oo ku aadan wareejinta Cabdikariin Sheekh Muuse qalbi dhagax oo ahaa sargaal ka tirsan jabhadda ONLF oo ka dagaalanta dhulka Soomaali galbeed